muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan ayaa soo kormeeray goobaha ay ka socoto diiwaangelinta codbixiyaasha gobolka maroodijeex ee magaalada hargeysa. kormeerka kadib madaxweyne biixi oo warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay dilal qorshaysan oo bilihii u dambeeyey ka dhacayay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool. madaxweyne biixi oo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi waxaan soo maray kormeer magaalada caasimadda hargeysa way ka bilaabantay diiwaangelintii dhowr meelood. dadku aad iyo aad bay arrintaa u abaabulaayeen, weliba dhallinyaradu maasha allah way gudanayeen. muwaadiniintu mas-uuliyaddooday ahayd inay qaataan kawarka codbixinta oo ay tirada dalka cidda hogaaminaysa kaga qayb galaan. sidaa la socotaan habeen hore cadowga somalilan oo dhibaato badan iyo dilal badan ka geysta magaalada laascaanood gobolka sool, habeen hore waxay ku dileen dhan dhalinyaro ah oo aqoon-yahana oo la yidhaahdo cabdilfataax cabdilaahi cabdi lagula naanaysa hadraawi, oo aad dadka gobolku uga damqadeen geeridiisii iyo dilkiisii. ninkaa dhalinyarada oo sida la sheegay masaajid ka soo baxay oo nabad gurigiisa ugu sii hooyanaya ayaa niman wejigooda qaniya dileen, waanay baxsadeen. horena in badan bay taasi u dhacday. waa arrin xanuun badan. markii aaskiisii laga soo dareeray dad badan oo dhallinyaro iyo haweeno badan oo caadifadooda kor u kacsan tahay ayaa magaaladii ka abaabulay mudaaharaad. ciidamadii amniga isku dhaceen, buuq badan baa dhashay. shalayna waxay naga dhaawacmay iyo dhimashada keenay buuqaa 3 qof inta la hubo ayaa dhintay, 9 waa dhaawac. waa mashkalad aynaan filayn, waa mashkalad naxdinteeda leh. waa la qaybsanaynaa dadkaasa ka dhinteen dhibaatada iyo xanuunka, caruurtoodii, ooryahoodii, waalidkoodii. xanuunka iyo dhibaatada ay dareemayaan waa la dareemaynaa. waxaan aada uga tacsiidinayaa gobolka iyo qaranka iyo guryahoodiiba dadkaa dhintay. waxaan codsanayaa shacbiga reer laascaanood, dhallinyarada iyo haweenka, odayaasha, culimada, ganacsatada, in arrintaa cadowga nagu soo dhex tuuray aanay dhibaato intaa ka badan aynaan isgaarsiinino. dadka ka damqaday dilalka badan ee cadhaysan waa laydinla qabaa.